waxaan ku dhufanayaa ChatGPT waxaa sameeyey OpenAI company laho marka waxaan ku dhufanayaa calaamadan sidii u eg sameecadaha kaleeto hadaan ku dhufto. Hey there, how's it going? What's on your mind today? Can you explain Bitcoin in Somali? Waa maxay Bitcoin? Bitcoin waa lacag dahab oo loo isticmaalo internetka laakiin aanu maamulkiisa ahayn dawladda ama bangi. Waxaa la aasasay sanadkii 2009 markii qofka That's funny. That's not Somali. Okay, can you explain in English now? Bitcoin is a type of digital currency that operates independently of any central authority or government. It was created in 2009 by an unknown person. What is the difference between crypto and Bitcoin? Crypto, short for cryptocurrency, is a broad term that refers to digital or virtual currencies that use cryptography for security and operate on decentralized networks based on blockchain technology. Bitcoin is a specific type of cryptocurrency and is often considered the first and most well-known cryptocurrency. So, while Bitcoin is a type of cryptocurrency, crypto encompasses a wider range of digital currencies beyond just Bitcoin. Just let you know that I believe crypto is a shitcoin. Hey, everyone's entitled to their opinion. Crypto is definitely a polarizing topic. Some see it as the future of finance, while others are skeptical, calling it shitcoin and all. It's a wild ride for sure with its ups and downs, but hey, that's what makes it interesting, right? Whether you're a believer or not. marka halkan ugu jeedaan markii hore aan weydiiyey waa maxay Bitcoin oo isagoo Soomaali igu sharxaya wuuna soo qoray Soomaali ahaan marka Soomaali qoraalkiisa waa sax laakiin waxaa khaldan qaabka ugu dhawaaqayo aaladan ChatGPT qaybta dhageysiga ama hadalka weli ma barinin qaabka Soomaaliya loogu hadlo weli luqadaha kale ku hadashay sida Isbaanishka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo kuwa weyn laakiin weli luqada Soomaali laguma soo darin laakiin way qori kartaa saad halkan ugu jeedaan waxay noo sharxaysaa Bitcoin waa maxay marka iri Bitcoin waa lacag dab ah marka kaliya su'aashan Bitcoin qosaysan weydiiyay laakiin waxa rabta ayaa weydiin kartaa waxa kale soo fur kartaa page kaleeto waxa weydiin kartaa xisaab iyo sharax la dhigi kartaa waxa macallin ku noqon karaa tutor ku noqon karaa wuxuu sameyn karaa image hadda haysta midka lacagta weeyo oo beeshii lacag la bixiyo kan hadda isticmaalay waa kan free-ga laakiin kan lacagta la bixiyo image ayaa ku sameyn kartaa image-ka thumbnail-ka iyo YouTube-kayga soo galiyay waxaan ku sameeyaa kan ayaan ku sameeyaa waxyaalo badan haddaad arday tahay haddaad qof shaqeeya tahay uu kaa caawin karaa CV buu kuu qori karaa English kaa caawin karaa emailada diraysa buu kaa caawin karaa reportska essayga iyo assignment-yada la soo diray ayuu kaa caawin karaa xisaabaadka iyo assignment-yada kale oo sida science-ka kale ayuu kaa caawin karaa waxaan u maleynayaa markay soo baxday ayaan video ka sameeyay YouTube-ka hadda dib u raacdaan aan kaga sheekeynayo qaabka u shaqeyso horumar weyn ayaa ku bay sameysay ilaa maalinta aan soo galiyay ilaa kan wax weyn ayay iska bedelay codkan baa u jeedaan maalin waxa la soo galin doonaa in image ama sawir hadda way jirtaa live sameysay camera shidid waa maxay waxaan aad tira ereyga ku sharaxdo waxyaalo badan bay macnaha soo wadaan hadda maandhowta ay soo bandhigeen video ayay soo wadaan mustaqbalka video inay sameyn karto marka waxaan idin leeyahay qofkii wax baranaya ama shaqo ku jira wax badan ayay shaqadaada kuu fududeynaysaa ama arday haddaad tahay hawshaada kaa caawinaysaa marka ChatGPT waxay ku dhisan tahay AI waxa la dhaho artificial intelligence haddaad fiidiyoyaasheedii hore daawataan in badan ayaan kusoo sharxay waxay tahay AI iyo qaabka u shaqeysaba iyo kambaniyasha weyn hadda Microsoft Google Apple kulli hadda waxay maalmahan dhan laga hadlaya focuska la saaraya waxa la dhaho AI ChatGPT hala soo tijaabiyo wixii commentiya su'aalaha hoos ku soo qora aad ayuu mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh